بسم الله الرحمن الرحيم. horta sidii ku cadeed qaraarka security councilka qorshahaas waa jiray in ciidamo kuna ay ka baxaan wadanka Soomaaliya guud ahaan caadi ahaan waxaan rajeynaynaa annaga ama sida aan filanayna waxay ahayd in ciidamadaas kunka sektaradoo dhan shanta sektor wadanka laga qaadi doono prorata ama proportional looga qaadi doono laakiin waxaa muxuu ahay golaha siyaasadda iyo amniga AU-da ayaa go-aan gaaray in kunkaas ciidamada Burundi oo Hirshabeelle jooga laga qaado gaar ahaan sektorka shanaad ee Shabeellada Dhexe. arrintaas runtii annaga aadaan muxuu ahay aan walow uga muujinay waana la xiriirnay annagoo la kaashanayna dowladda AMISOM iyo Peace Security Councilka markay noo yimideen oo ay dalbayna ay noo yimideen heer safiir intaba waa la qaybsanay haddana dadaalo runtii aada u fara badan oo aan uga mahadcelinayno dowladda dhexe muxuu ahaay haddana ku dhamaaday safarka hadda madaxweynuhu oo uga soo dhamaaday Burundi waxaan aada rajo uga qabnaa in arrintaas dib loogu noqon doono go-aankaasna uu u fuli doono si aan saameyn weyn ku yeelan amniga Hirshabeelle. maxaad ka wadaa go-aanka dib baa loogu noqon doonaa ma bixitaanka ciidanka ayaa dib loo dhigi doonaa mise qodobkan aad sheegaysa in ciidamada baxaya ay ka wada yimaadaan dhammaan qaybaha AMISOM oo aysan Burundi ku koobnaanin ayaa suurtagelaya waa midkii runtii go-aankaas hadda officially anaga weli nama soo gaarin waana ka dul sugaynaa siday ku dhammaato laakiin waxaan haysanaa kalsooni iyo xaqiijinna loo xaqiijiyey inaysan ciidamadaasu sidii markii hore soo shaac baxday in kunka ciidanka ay ka wada bixi doonaan sektorka shanaad ama Hirshabeelle inayna ka bixi doonin kalsoonidaasaan qabnaa habka iyo jidka loo mari doonana discussionkaas weli waa socdaa waxaadna arkaysay haddii aad aragtay saxaafadeedkii ay soo wargurtiidkii ay soo saareen labada madaxweyne ee Burundi in muxuu ahay la isugu yeeray wadamada mataqaanaa ciidamadu ay ka joogaan wadanka Soomaaliya oo TCC-da marka go-aanadaas ugu dambeyntii waa ay dambeeyaan laakiin waxaan kalsooni ku qabnaa dadaalka la sameeyey oo heer walba oo la sameeyey in arrintaasu aysan sidii hore aysan u dhici doonin. hadda ka hor dib baa loo dhigay waxay ahayd sidaan maqlay inay baxaan sanadkii hore 4 bilood baa dib loo dhigay ciidamada Burundi bixitaankooda marka ma dib u dhig kaas la midaba oo muddo gaaban 4 bilood 6 bilood mise waa wax muddo dheer rajada aad qabto kalsoonida aad qabto ma kalsoonida aan qabnaa waa in muxuu ahay markii hore waxaan cabsi ka qabnay in kunka askari sectorka laga saaro meelo fara badan laga soo baxo meelaha laga soo baxa naftigooda meelo badan oo la cayimay oo aada walwal noogu haysay oo aan aad uga doodnay ayaa jira runtiina anagu uma aanan kala harin laga soo bilaabo xafiiska madaxweynaha xafiiska gaashaandhigga ay sheegeen prime ministerka meel walba Hirshabeelle aadan arrintaas aan runtii aan uga doodnay qoraallo badan waa ka sameynay xiriiro badan waa aan sameynay marka go-aan rasmiya oo hadda soo baxay ma jiro oo laleeyahay saasaa la yeeli doonaa laakiin waxaan qabnaa shirkii ugu dambeeyay oo usbuuca dhammaadkiisii aniga aan qolada AMISOM aan la kulmay ama fariimaha naga soo gaaray dhinaca xafiiska madaxweynaha in arrintaasu ay mataqaanaa sidii hore aysan ahaan doonin. waxaad ii sheegtaa dhibaatada ka iman karta hadday ciidamadani ka baxaan deegaanada hadda ay joogaan annaga waxaan maqalay Cadalle Raagaceelle Xaaji Cali laakiin dhibaato noocee ay idinka iman karta maamul ahaan hadday ciidamadaas baxaan runtii horta barnaamijkan ciidamadan ay ku baxayaan wuxuu qayb ka ahaa barnaamijka kala guurka ama loo yaqaano transitional planka runtii waa documenti waa publica waa heli kartaan qodobo fara badan ayaa ku jira oo yacni la rabo in la maro intaysan ciidamadu bixin waxaa ka mid ahaa in mataqaanaa ahaado arrin ku salaysan muxuu xaqiiqda ama realistic inuu yahay conditional oo markii dhowr arrimood la sameeyo kadib ama markii la diyaar garoobo ama markii ciidamo la diyaariyo wuxuu ahaa comprehensive oo macnaha shaamil ama wax guud oo militariga keliya aanan la fiirin ee la fiiriyo mataqaanaa dhismaha maamulada iyo heshiisiinta muxuu ahaa diyaar garowga iyo sheeg golayaasha deegaanada yacni in Soomaalidu ay diyaar u tahay inay mas'uuliyaddaas la wareegaan ayuu transition planku ahaa ma ahayn yacni mid loogu talagalay in oon dhinaca militariga keliya intii laga fiiriyo yidhaha militarigu u abaxo marka doodaas hadda annaga waa garteeni waan gudubsanay waana runtii waa loo waa la dhegaystay waa la garwaaqsaday waxaan rajaynaynaa in cabsiyada aan qabno oo in meelihii laga soo baxay
dadka lagu dhibaateeyo, lagu bartilmaamaysto, muxuu ahaa ii sheegay dad lagu laayo, violations badan ama xadgudub badan oo dhinaca bini-aadanimada iyo dhinaca sharciga ee caalamiga inuu dhaco, waxaasoo dhan waa ka digna runtii. marka waxaan rajo ka qabnaa insha allahu tacaala sidii welwelkii hore oo aan qabnay hadda ma qabno. bal wax yar ii faahfaahay xadgudubyada iyo dhibaatooyinka dhici kara. waa taabatay si guud, laakiin si hoose haddii ciidamadaas ay ka baxaan, degaanadaa la sheegay inay ahayd inay ka baxaan, inkastoo hadda sidaa sheegtay taasi isbedeli karto. degaanada guud, degaanada anagu cabsida aan ka qabnaa waa barakac guud oo mataqaana degaanadaas laga soo barakaco, kufsiyo inay dhacaan, muxuu ahaay meelaha bartilmaameedyada wax soo saarka dhaqaalaha sida ceelasha iyo in mataqaana la gubo, la dhibaateeyo, in yani muxuu ahaay wax la tabco waayo, in xoolihii la dhaqan waayo. runtii meelo badanayna hadda kahor ka dhacday. marka yani international humanitarian law ama sharciga qaanuunka caalamiga waxyaalaha uu ka digaayo oo dhan ayaan kasii dignay in yani mas-uuliyadaasu mataqaanaa ay annagana na fuusho, ciidamada na taakuleynayana ay fuusho. marka arrin si degdega loogu fududaa karo inaysan ahayn waa laysla garwaaqsaday. wax hadda dhacay miyaa jira dad cabsidaa iyo walaacaas darteed u barakacay ama degaanadii kasoo cararo magaalooyinka waaweyn soo galay miyaa jira? maya ma jiro. annaguna runtii sidaan kuu sheegay, dowladda dhexe, ciidamada qalabka sida, hogaanka guud oo CDF-ka, kulli dadka waa niyadda waa u dejinay. hadda naftigeeda degaanada ciidamaa jira, dagaalo yaryar oo meesha ka dhacay ciidamo ku kala dhex jiraa jiro, weli anagu aanan kasoo qaadin oo hadda ciidamada dhex jooga. degaanku hadda waa xasiloon yahay, laakiin haddii guuritaan intaas leego amisom hadduu dhaco, dee dabcan culeyska intaa wuu ka badan yahay, xaaladuna waa isbedeli kartaa. laakiin hadda xaaladdu caadi ayay ku sugan tahay. maamul goboleedka Hirshabelle ciidamo u gaar ah oo maamulka gobolka hoos yimaada miyuu leeyahay sida Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo kale? sida laga yaabo inaad muxuu ahaay aad kala socotay ama warbaahinta ama social mediaha, annaga ciidankii ugu horreeyay oo Hirshabelle oo 200 usbuucan ayay ka qalin jibiyeen xerada muxuu ahaay tababarka Jowhar. 400na haddaan rabnaa inaan 200na ku xareyno Beledweyne, 200na aan ku xareyno Jowhar. annaga ciidan gaara oo maamul goboleedka uu leeyahay oo ciidankaas ka horeeya ma jiro. marka qorshihiinu waa maxay? ciidankani ma booliisba mise waa ciidamo militariya dagaalami kara oo al-shabaab la dagaalami kara, mise waa ciidamo booliisa? bal qorshihiina wax yar ii sharax waxa aad doonaysaan damacsantihiin dhinaca amniga iyo dhismaha ciidan maamuleed. runtii sida hore aan u sheegay, arrintan ka bixitaanka amisom ay ka baxayaan sectorkan ama ay ka baxayaan Soomaaliya, yani hurdaka toos ayay u tahay Soomaaliya iyo Hirshabelle. annagu haddii xataa dib loo dhigo ka bixitaanka, waxaan bilowday diyaargaroow aan u diyaargaroobayno inaan degaanadaas aan la wareegno. ciidamadaas qayb kamida oo muhiim ah waxay noqon doonaan ciidamo daraawiisha oo daraawiishtii booliiska ah, laakiin u tababaran inay mataqaanaa degaanadaas ama cadowga ka badbaadiyaan ama qabaa'ilka dagaalama kala celiyaan, oo runtii daraawiishtii Soomaaliyeed oo la yaqiinay ah. ciidamada kaleetane muxuu ahay waxay noqon doonaan ciidamo booliisa oo madaniya oo amniga suga. laakiin culeyska ugu badan iyo hawsha ugu badan dabcan waxaa nala qaybsan doona ciidamada qalabka sida oo militariga oo shaqadoodu hadda ay tahay inay yani cadowga culeyska ugu badan ay saaraan. annaguna waxaan ugu talagalnay markii ciidanka militariga ahu meeshay qabtaan inaan uga hoos marno oo aan degaanadii xasilino oo aan amnigii sugno oo wixii dhaqdhaqaaqa hooyar iyo aan muxuu ahay aan ku aadno. laakiin arrintu ma aha arrin mas-uuliyad gaara maamulka Hirshabelle u fuusha ama maamulada kaleba u fuusha. waa arrin Soomaaliya oo dhan ka wada dhexayso, waana arrin u baahan in laga wada qayb qaato. waxaad wax yar ii sheegtaa, dhibaato weyn baa ka taagnayd jidkan isku xiraya Muqdisho iyo Jowhar, gaar ahaan Balcad iyo Jowhar inta ka dhexaysa. dhowr jeer buu go-ay, dhowr jeer baa mas-uuliyiin iyo ciidan iyo dad shacaba lagu laayay intaba. marka jidkaasi ma xiran yahay? jidad kale waa xiran yihiin, Jowhar ilaa iyo Buulo Burde waa xiran yahay, Buulo Burde ilaa Beledweyne wuu xiran yahay. maxaad ka qabanaysaan furitaanka jidadka?
xirnaanta jidadku runtii waa dhibaatada ugu weyn oo xagga amni oo Hirshabeelle haysata. waana barnaamijka hadda abaabulkiisu socdo. waa barnaamijka muxuu ahay xamar dhowr jeer looga shiray, Nairobi looga shiray, Addis Ababa looga shiray. hadda muxuu ahay ii sheeg madaxweynuhu oo safaradan hadda uu ku jiro muhiimadda ugu weyn ay tahay. waa arrin u baahan inta ciidamada AMISOM aysan bixin diyaargarow, aysan mataqaanaa 2021 ama 21 intaysan bixin, in Soomaalidu ay isku tashato. waxaanan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo 4 bilood ama 5 bilood oo hadda sanadka intaan Juun la gaarin barnaamijkii jidadka lagu furi lahaa in ololihiisa la bilaabi doono. Hirshabeellena ay ugu horeyso. arrintaasna wixii diyaargaroobo annaga xaggeena waa ka samaynaynaa. dhinaca militariga iyo ciidamada qalabka sidana way samaynayaan, AMISOMna way samaynaysaa. marka barnaamijkaas waa barnaamij